بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا ليال waxaan ku jirnaa dhaxalka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ku dhaafin nasiixada ahaday oo barnaamijkan si gaar ah xambaarsan yahay taxana ah. waxaan qaybta koobaad aan ka dhignay ad-dacwatu ila Allah subhanahu wa ta'ala. qaybtaasaan marka hadda rabnaa inaan faahfaahino oo aan ila 7 qodob oo asaasiya ay dacwada arkaanteedu ka kooban tahay. 7daasaan marka insha Allah dul marayna maanta xalaqaadkeena maanta 7daas dul marayna si dacwada mowduuceedan u dhameeyno باذن الله تعالى. walaalayaal dacwada waxa ugu horeeya awal shay waxa weeyaan qofka daaciga ah hadda horeyna waatan u sheegnayo qof walba wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaxalkiisa uu ka qaato oo dacwada ugu weyneed ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam shafaacadiisa iyo u dhawaanshadiisa iyo maxabadiisa iyo lajaaliskiisa iyo insha Allah khayrka lagu helaayo shafaacadiisa iyo la socodkiisa iyo dacwadii iyo diintaas ayuu ka rajeenayaa. walidaalika qof walba ama habasda ma yareysto qof walbana majaalka ilaahay u sakhara ka galo laakiin aad muhiim u tahay arintaas. marka majaalaadka ugu horeeya waxa weeye marka sida soo socota majaalka dacwada qaybihiisa hoose waxa ugu horeeyay ayuha al-ikhwa at-ta'lim طلب العلم الشرعي ayaa ugu horeeya si aad daaci u noqotid oo diinta aad u fidisid لا دعوة للجاهل أو لا يكون الجاهل داعية. نك الجاهل كداعي من غكره نن دجال هذا مركو دجال هذا وحبه إنه سلب كيسة قاته قلب كيسة وحوجر رأيه قلب كيسة أنا وحويان إنه هو كيسة قاته لبسته سيفتيسة وجرارته ورقيسة وعبيسته وقرك دجال لمايو مديش ونحاد وكو دجال لمايو مديش إنه درار صدو إنه دقاجوي مركز. لكن ده ترى أنا أقول حتى وذن قرون حتى وذن دجال هذا qofka naftiisa looga ayaa tahay oo qof dayacana tahay. marka diintan fidinaya daaci baan noqonaya diintana ma aqaano qofka ayay ma jirto qof naga aqbalaysana ma jirto. walaalay waxa ugu horeeya marka inaan diinta barano talabul ilmi sharci cilmiga inaan dalabno way diinta inaan barano way cilmiga in la dalbana waxay u baahan tahay 3 shay in la helo. waxa la yiraahdo husnu talaqi si wanaagsan in loo qaato cilmiga iyo in wax sax la qaato oo sihhatul mutalaqa bihi waxa la qaadana inay wax sax yihiin iyo tartiibta loo qaadanayo inay ahaato tartiib cilmiga mid lagu qaato ah oo aan fawdo ahayn. waa faahfaahinayna horta marka ugu horeyso qofka dalab cilmiga waxa la doonayaa waxa ugu horeeya cilmiga inuu barto doo daaci raba inuu noqdo waxa weeye quraanka ilaahay inuu barto way husnu talaqiga malaabayna iyo tartiibaadkiisa quraanka ugu horeeya. haddaad aragto nin aan quraanka aan rabbuhu ka aqaanin oo xabad ka aqaanin daacina noqdana rabo waa nin dhunsan weyn kaas oo ayday quraanka yaani hadhow maartay jajabinayo dadku maxuu sheegaa wacdiga ama diintu waxa weeye markaad eray tiraaba inaad quraanka ilaahay soo qaadato way sunnada inaad soo qaadato way sallallahu alayhi wasallam. marka horta ko waxa ugu horeeya quraankana wuxuu baahan in macallin loo tago talaqi sax la qaato musxafkan soo qaadana kaliya ama TV-gan shidana kaliya ma aha laguma qaato inaad macallin u tagtid way. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني إمام المعلمين وأهل القرآن جبريل معلم كيسة يقرأ آلي أسوي له أنت ما أخري وما أخري أنت يدي على اللقدة أساس رفع أساس للجوجي مركز يقرأ هذا الليل مركز معلمك واكو شبيعنا يا واكو عناننا يا واكو عذاب يا ما أنت قرأ عادي ميستو قضاء عادي ميستو كلها وحصلنا هذا اللي تعلمنا يا ومنهج جبريل عليه السلام قيبة كمذا وي والله قاعتي مركز وإن هذا معلم أتكتد ومعلم قرآن كأتكتسح في السدوة halkaas cilmigu ka bilaabanaya. labo waxa weeye hadana inaad sheekh u tagtid marka macalinka soo dhamaatid ee aad kutubta baratid way kitaab baratid way. waxa la yiraahdaa callimu amnaakum sigaar al-ilm qabla kibaarihi dhih jireen culimada salafku ilmihiina quraanka ee cilmiga kiisa yararka bar horta intaan kiisa waaweyn la gaarin. waxa rabaa ilmaha in la xifdisiyo mutunta hoose kutubta hoose kutubta luqadda inuu ajrumiga barto inuu mulxaa barto inuu muntamada barto inuu saas u socdo hadana uu sii gudbo maartay qadrunadaha alfiyada uu sii gudbo saas u socdo oo culumta hadba mustawayaad hoose uu ku socdo cilmi alxadiidka inuu barto 40 nawawiga uu ka bilaabo nusuusta axaadiista kadibna hadana kutubtaas hoose uu saas u akhristo ilaa saxiixaynka iyo sunanta uu ku soo khatimo. sidoo kale culumul quraan tajwiidka inuu barto iyo quraanka sida loo akhriyo siiqadiisa kadibna hadana hoos laga soo dhiso علومت حديث كأنه برتو بيقونيدي هي مارت تدريب الراوي هي مقدمة ابن صلاح هي كتبتي مارت ألفية السيوطي ألفية ابن صلاح كل علم حديث اللي برتو أو اللي قلنا نظامي إنه برتو وصول الفقه إنه خاص برتو إنه صبرتو مارت أو أخذت كتاب كي رايو مارت جويني
oo usul fiqiga ah uu kasoo bilaabo soo socdo ilaa uu kasoo gaaro usul fiqi waxaa jira maarata nin la yihahdo khalaaf usul fiqi lilfulan usul fiqi ilaa mustasfa iyo aamidi iyaad kasoo gaarto kutubtada waaweyn waa soo soconaysaa kutubta waa fara badanta waa taxano wey taala maktabada waxaa weeye saas isu yeeleen igoo si u kala waawen yihiin kan yaraad bilaabay kan kuxiga ilaa aad kitaabka marjica kusoo dhamaysid marka cilmigan in saas loo bartay qofkii awooda qofkii aan awoodinna in uun ku filan oo cibaadada uu ku toosisto diintan uu wax ka garto oo wax ka aqoonsado waa inuu ka bartaa dadka oo dhan ma awoodi karaan inay dhammaan kutubtaas akhristaan laakiin asaasiyaadka sida tafsiirka qur-aanka iyo axaadiista waxbartood iyo canjaladaha culummadu ay duubaan iyo wacdiga iyo wax ka qaado fiican dhaxalka eber ha ka noqonin adiga maxaa yeelay fii suurati namli ilaahay aayad waxuu dhex dhigay khatar ah oo aad u khatara aayaddaas goodi weynaa ku jira xataa idaa jaa-uu qaala akadabtum biaayaatii walam tuxiiطuu biha cilmaa am maada kuntum tacmaluun fawaqaca alqowlu calayhim bima dalamuu fahum laa yandiquun ayuu leeyahy alla subxana wa tacaala arrin khatara way aayaddaas naxdinay leedahay markaad akrinaysaba heer kastoo cilmiga ka joogtid adiga laftaada waxaa weeye waa naftaada tuhmaysaa xataa idaa jaa-uu gartay yimaadiin waa maalinta qiyaamo wey alla wuxuu yidhaha su-aashaana weydiinaya akadabtum biaayaati aayadaygi ma soo beeniseen walam tuxiiطuu biha cilman ogaalna kuma aadan koobina soo ma aha waxba kama aadan koobina kama soo barana soo ma aha xabad kama taqaanin aayadihi soo ma aha maanta waxaad ii timid inkun diintii waxba ka aqaanin soo ma aha am maada kuntum tacmaluun hadda maxaad qaban jirteen waa maxay waxaad qabanayseen marka haddaadan aayadihii aan soo dejiyey 114 qur-aanka aan soo dejiyey aayadihiisi adan waxba ka aqoonina oodan diinteeda waxba ka soo baranina oo adan maxaad qabanayseen maxay ahayd ka mashquuliye ilaah in ku dhashay maxaa lagu jawaabay allah subxana wa tacaala ilaah aayadaha waxaa iga mashquuliyay beerfalow maa laleeyahay iyo maarata iyo waxyaabo kale maxaa loo sheegaa marka in qur-aanka ilaahay la barto la fahmo waa laga maarmaan qur-aanka ugu yaraan lafdigiisa iyo macnihiisa inaad fahamtid waa si aysi su-aashaas kugu dhicin qiyaamo oo aad ugu camal fashid waxaad awoodi kartid camalka kula timaadid oo salaadihii aad timaadid aayat alwudu yani maaragtay يا الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وضوء إن آية القرآن كبرتد كتبت فقه كبرتد السفينة دي أبو شجاعي كتبت كلا تمارة فقه أسدبي لي وحوم آخر سوء أقل شيء فن كستبه ولا بسد هذا أقومهم سنة عامي كستحت على قدونا علوم تخصصية وآلات يعني تخصصية هي علوم ضروري هالواقع بها علوم ضروري قف كستو مسلم الغربه للتعبد لو غربه حواي قرآن كأنه وحكت تقانو سيقع عباديسته معنيسه وحكت فهم سنتهاي أحاديثنا ولو هالكتاب لو كتاب لكن كأخرسته عقيدة أو كوه إذا التقانو أو عقيدة إلهي لغرهم يسينها أي فهم سنتهاي إيه سيدو كليتو أحكام عبادات كصومك يزكدا يحجك يأعماش اللي قربه يطهارده إنه التقانو أنت سوق يرى وين التقانو أنت وحال لما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحن واجب كدعين إلا إن لتم هذا ما هنا سوون واجب ونغنى مركا إلهي ما عابدك أنت سقونين قال لك مرمان مركا إذن وحأقول يا مركا طلب العلم الشرعي علم إلا برتون إلهي جاهل من لقوا ما عابدوا جاهل من داعي لقوا من نقضوا هذا وحن قال إنه ونين داعي ربنا نقضوا ورها دحلك إنه كانوا حكوية صلى الله عليه وسلم أما جبرت أن الداعي نقطه ودحلك حكوية لطو لابد أن الدين ده كبر توي قضب قاس قضب الكوباد وأنا لقى مرمان قضب كلا بعض حوي والله أخوتي الأعزاء وهذا مهم كأ أنت أنا كاس أوجد بالمركة قضب كان مركة علمي إن لا ضلبه دبعت بدنا كجست ضد بدن أو اللي يراه ويل يقبلها وهذا فيسبوك كان يقلب كان مقيم وحي وقت آدو بدن كل بحيان وحاسني في صدام كان دقيسو هذا عالم كانوا المسلم قال وحاس غرائب كا ولا قصوب بحناية هذا ترى ما أنتم مثل مرة فرع أسام حناية وقت كان رواد منايا وإحنا كيف أيدي ميسي أفكار ترى بدن هي حركات واحد لقوا قصله واحد لقنحه واحد لا يابه واحد غرائبه واحد منكره واحد خيره وحسنا ما يشكل ذبحه مركا إنا وقت بدن أسقى قادم ويحاس عزيمدي إنا وقت كان نظام ستيد الاستفادة من الوقت غيب كمذا علمك كود لبتيد كتبتها كو أخذتيد علمك أنا وحلا ضرب سيدس لو ضرب جري علمك وحول ليها إن لو حرست أباهيا هذا الشيء وتيكرت أوتك هذا إنه تيكر إن جروها قاعدوا يجوا كتبتي إذا ضوبا أي ما أنت قلب كان عصر أجهزة يكون حاجتها إذا كاسيد كادس أنا كاد يعني مارتي كاسيد كان وايت على عن جلدي عادي آية وريكورك لك شكر غفك أن قلب كان قارن أما ما لها أصول تبينه
maaragtay dadka qaarkood ay u diidayaanba inay qalabkan casriga isticmaalaan waxaa weeye rikoorkaaga soo qaadanaysaa oo iska gashanaysaa dalaq ama falaash gasho ama canjaladihii caadiga ahay suuqa kasoo iibso ee bacdaada kasoo buuxso tafsiirkaa ku jira axaadiistaa ku jirta kutubtaa ka buuxda inaan waqti siisa kaliya lagaa rabaa intaas sheeka ku jiri laheed maa laa yacniya ama aad ku jiri laheeday maaragtay waqti dhumis ama t v waqti kaa qaada lahay firsadiisa ama aad facebook ku mashquul laheeday waqti si inaad cilmiga dalabtid waa laga maarmaan haddaad doonaysa dhaxalka nabiga in wax ku yidhahdo sal allahu alayh wasalam haddaad doonaysa diiwaanka ducadda in lagu qoro daaci aad noqotid waa laga maarmaan waxaa kaloo laga maarmaana wax saxa in la barto kutubta qaarkood waxaa ka buuxa munkar waxaa ka buuxa diin la-aan waxaa ka buuxa fusuuq waxaa ka buuxa ilxaad waxaa ka buuxa shirkiyaad waa ina waqti la isaga qaadan waa inaad xulatid dad caqiida saxa ku baraayo oo tawxiid saxa ku baraayo oo ilaahay kugu xiraayo aakhiru zamaankan waxaa aada u batay dad diintii inxiraaf ku qaatay iyo dad u tacasubayo oo kugula dirirayo weliba kugu qasbayo wax la yaab la waayo haddaad aragto kutubta qaarkood waad ka xishoonaya inay shirti xataa kutuba dadaan aaminsan caqiida u aaminsan waxay gaartay dadka qaarkood inay caqiida ka dhigtaan waxa la yidhaha alxulul walitixaad culammada oo yaqaaniin waaweyn oo wax soo akhrisatay oo yaqaaniin nimanaa waxay la gaartay falsafadii iyo cilmulkalaamkii inay yidhaaheen koonkan oo dhan baa wada ilaahyo hal ilaah hal laisku ogaa illa cabdu sooma rabb alcaalamiin allahu alwaaxid alaxad asamad alfard aladi lam yattakhid waladan walaa saaxiba allahaasaa la isku ogaay waxay yidhaheen marka waxay la gaartay falsafadii inay yidhaaheen eeyaha iyo doofaarada iyo dameerada iyo looda iyo geela iyo ariga iyo geedaha iyo bani aadamka kulligood waa ilaahyo kulli ilaah la caabudo wey wax addoona mama jiraanba koonkan kulli ilaahyo ku nool falsafad diin la-aana la gaarta kutub culum akhrisaa waxaas ku qoran yihin maanta oo taala xamaray kula taallaa iyo hargeysa iyo maxaan ku ihahda iyo garowe iyo meelaysan aalan male ilaa qaarkood ay gabay ka tiriyaan wama alkalbu walkhanziiru ilaa ilaahuna wama allahu ilaa raahibun fi kaniisati saasuu yidhi wama alkalbu walkhanziiru ilaa ilaahu maan lehna anunku hadda ilaa ilaahuna ma dhehen maxaa yeele ilaahooda waa iyagu ilaah u yihiin annaga ilaah nooma aha marka waxaa weeye يعني أي كنيسة كان دح فدي إضافات كله وحكلا ما هو إلى هذين يرهن مركب واحد سوى الدين الآن فلسفة دي ولا قارسة لأنه علمي أيان تلقي جيسيان وحن الواحد يدين فهم كيسي قاعدة اللي محرن قاعدة اللي وحروا قاعدة اللي وحروا معي مركب وإن فهمت الدين كتاب كالسنة السلف الصالح فهمه كما فهمه السلف الصالح وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سلف الصالح النبي إمامه أبو بكر الصديق يا أبو بكر يا عمر سيد عمر يا سيد عثمان يا سيد علي يا أبو عبيدة يا الصحابة الكرام كأيضا يا تابعين أئمة الهدى سيد إمام أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد أفرت إمام ساسي وكل دأوين آيين ساسين علماء سقوط آيين يا نمان أي مدي يا بخاري يا مسلم يا ترمذي يا أبو داود يا النسائي يا ابن ماجه يا غيرهم أصحاب السنن والبيهقي والدارقطني وغيرهم والخطيب البغدادي وابن حزم ومرت كل جود أي مدي وين هذا ابن حزم حقوق ظاهرية كجرتين لكن فقه قوي حق عقيدة وقت سنة وننسى وسلفي ولبا مركز دتك صار دن وأصحاب العقيدة وسلف صالح لإرادة خير القرون سد هذا القرن وفضلك بدنا النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته دي على غيره يعني التمادي لكن يعني نقول رين كنا بوبي كنا هذا كنا ساسرية كنا إلى شاكت معانكم لأنه ولي هي حكى خصي سوق فانايا أو لا أنا ولي وحوي ما أقول هذه هذا ولي حتى كسوق قادبة أسأل إلهي ولي كذا سيؤتى الله هذه وحكى خصي مجران هذه أنا ولادي أكودي أنا ولاد راسد ولاد وحكى الإيمان والتقوى كذا إحنا قليل الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون مرك إيمان التقوى هلا قايل هذا أسوق من تدد عليه بين ما عبادة يستوي إلهي ولي جيس ويا هذا ما بيقول بالك إلهي عند الله أوكي هان كدقنا هذه وحكى خصي مجران هو الإلهي يسوي ده يسوي هذه هذا الغربة هذه أنا ولايدي أنا سوق أولياء سال الغربة هذا سوق لي كرنا إيمان التقوى إذا كويرت أنا استغفار يا إله يدم دافنا ترى هذا والبعض الدون صالح نقطة إلهي وحنا توعيد كل ما تلا غربة لك هذا هذا يقول ضعيفة هذا مخلوق اللي بس عطه يا ترى أنو كلام وحكي سوق يا إلهي أنا إسكت نافتين هل السؤال فخطر ومدة ضدك كبا بقى أنت سؤال والدين لا أنت ما شكت من الكاسوال مركب ولا ليال وحال جمرمانا إن قدوة أن كرجنا النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم هي سلف الصالح والصحابة التابعين يتبع التابعين أئمة الإسلام انتاس يعني إن شاء الله قضب كان وقبحينا قضب ذاك الدعوة الحريرة نقول إن شاء الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله